wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa agab caafimaad gaarsiisay isbitaalka Madiina oo ay ku jiraan dhaawacyada dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii ka dhacay isgoyska 14 Oktoobar. ugu horeyn gudoomiyaha gurmadka caafimaadka qaran ayaa sheegay in wasaaradda caafimaadku ay isku xilqaantay inay qaybteeda ka qaadato ka jawaabidda musiibooyinkii dhacay, waxaana uu isbitaalka Madiina ku ammaanay adeegyada ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. maanta taariikhdu tahay 31 Oktoobar guddiga gurmadka qaran caafimaadka wasaaradda caafimaadka wuxuu soo booqday isbitaal Madiina oo kamid ah isbitaalada ugu weyn magaalada Muqdisho ama guud ahaan Soomaaliya la tacaala xaaladaha emergency-ska ee dalka ka dhaco ahaana hormuudkii isbitaalada howlahaas la xiriira muddada 30 sano la soo dhaafay saa la socotaan 29 bishan magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay qarax aad maaragtay baaxad weynaa khasaarihiisuna badnaa wasaaradda caafimaad ahaan iyo ka guddi ahaanba waxaan isku xil saarnay inaan maaragtay ka jawaabno xaaladaha caafimaad ee ka dhashay emergency-kaas dhacay. isbitaal Madiina wuxuu kamid ahaa isbitaalada qabtay xaaladihii ugu badnaa ugu yaraan maalintii koowaad waxay qabteen 79 bukaan oo dhaawacyo ka soo gaareen qaraxii iyo dhimasho ku dhawaad 75 iyadana ah. maalintaas ilaa hadda waxay la tacaalayaan xaaladihii ka dhashay qaraxii maalinimada ahaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho 29 bishan. guddiga oo aan aniga gudoomiyaha u ahay iyo guud ahaan wasaaradda caafimaadka waxay isku xil saartay marka inay kaalmayso lana maaragtay dadaasho sidii xaaladaas dhibaatadii dhaawacyadii ka dhashay ay u heli lahaayeen daryeel caafimaad oo hagaagsan. maanta marka waxaan la soo gaarnay isbitaalka Madiina qalab daawo iyo isugu jiro qalabka qalliinka si xaaladan ay wax uga qaataan kitka ama waxa loo yaqaan trauma kitkan u keenay waxaan aaminsanahay inay maaragtay ka anfici doonaan inay u isticmaalaan qalliimada iyo dhaawacyada imaan doono iyo kuwa hadda u yaalan haday ay maaragtay noqoto inay maaragtay u baahdaan. deeqdan waa deeq kooban oo bilow u ah deeqaan adduunyada ka codsanay. waxaan ku saleynay marka inaan maanta soo gaarno isbitaal Madiina maadaama baahiyaha jira iyo capacity-ga isbitaalka uu waxa soo gaaray aad u baaxad weynaayeen. waxaan isdhahan waa meesha ugu mudano in laga bilaabo ah maadaama dad maaragtay dhaawacyo baaxad leh oo aad u fara badan ay maaragtay la tacaalayeen. laakiin sida guud isbitaalku uu dadaal muujiyay isku filnaansho muujiyay marka annaga intaan waxay naga ahayd inaan maaragtay intii aan isleenahay kaalmo ku filanna waa helaysaan inaan maaragtay sii gaarsiino. marka waxaan rajaynayaa inay u kaalmayso doonaan adeegyada ay bixinayaan kaalin wanaagsan ka geli doonto waana mahadsantiin. dhanka kale agaasimaha isbitaalka Madiina oo gargaarkan gudoomiyay ayaa waxa uu kaga mahad celiyay wasaaradda caafimaadka agabyada kala duwan ee ay soo gaarsiisay. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. maanta waxaan joognaa isbitaal Madiina waxaan hor yaalla maaragtay trauma kit maaragtay nagu deeqeen maaragtay guddiga emergency-ga ee wasaaradda caafimaadka. guddiga maaragtay items-ka hadda noo keenay items aad u muhiim ah waaye oo maaragtay xaqiiqatan aad maaragtay bukaanada isbitaalka yaala ka jawaabayaan. waa sadad isugu jiro sadadka qalliinka iyo daawada bukaanada qalliinka. marka waxaan rabnaa inaan uga mahad celino maaragtay guddiga emergency-ga iyo maaragtay wasaaradda caafimaadka guud ahaan maaragtay jawaabta ay ka bixiyeen maaragtay baahiyaha isbitaalka qabay oo dhanka supply-ga iyo daawooyinka ahaa oo maaragtay qaybta emergency-ga ah. marka waxaan rabaa maaragtay inaan u mahad celiyo. waxaan leeyahay bulshada Soomaaliyeed maaragtay isbitaal Madiina wuxuu u baahan yahay bulshada wuxuu u shaqeeyaa bulshada garab istaagiisana aad muhiim u tahay waan u mahad celinaynaa guddiga emergency-ga iyo wasaaradda caafimaadka intaba. ku dhawaad 300 oo qof ayaa ku dhaawacmay qaraxyo isxigay oo laba ah oo ka dhacay isgoyska 14 Oktoobar ee ka soo baxay magaalada Muqdisho kuwaas oo intooda badan la dhigay isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho. hormuud ADSL Plus waa adeeg cusub oo ku sahlaya inaad ku xirnaato internet leh xawaare dheereeya 24 saac. ku darso ADSL Plus wuxuu ku siinayaa landline aad kula xiriiri karto asxaabtaada, qaraabada ama aad ku fulin karto hawlaha xafiiskaaga kaas oo ay la socoto daqiiqado free ah.
xirmooyin kala duwan oo qiimo jaban iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada moobaylka waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka adeegga internetka Hormuud ee ADSL Plus guriga xafiiska ama xarunta shirkadaada isticmaal ADSL Plus oo ku xirnow dunida